isbahaysiga xisbiyadu doorashada wuxuu ka qabiyaa sida sharcigu qabo, wuxuuna aaminsan yahay amba axsaabta loo dhiso markii horeba in la tartamo oo laga gudbo nidaamka qabiilka 4.5 ah amba qabiil wax ku qaybsiga. way dhici kartaa inaanan 4.5 in wax lagu qaybsado aanan ka wada gudbi karin oo qolana aan la dhihi karin ama xisbigaada wax ku heshaan baad ku weysay, laakiin qaab qaybsiga in laga gudbo kuraasta baarlamaanku ay ku timaado nidaamka axsaabta badan sida sharciga waddanku qabo. sidaa darteed mabaadi'da isbahaysigu waxa waaye waa in doorashada waqtigeedina lagu qabto, anna ay noqoto qof iyo cod. taas waa taasaa ma qabno wax intaas ka yar inay ummadda Soomaaliyeed u cuntamaan 50 sano ka hor amba da'da kuntumiyada dadka jira jaanis uma helin inay codeeyaan, coday rabaan doortaan, coday rabaan diidaan. marka in awoodda shacabka lagu caliyo principal dastuurkaanuna qabiyo, annaguna dee waxa xisbiyada loo sameeyey waxay ahayd in siyaasadda loo sameeyey. sidaa darteed mowqifka isbahaysiga xisbiyada waa kaas oo isagu korkortan kama gelayno, waana ka codsanaynaa in la ilaaliyo sharciga qaybaha guud ahaan Soomaalida. siyaasadda ama heer dowlad goboleed ha noqoto amba heer federaal ha noqoto, waddanku sharci buu leeyahay, sharciga in lagu wada dhaqmo. sidaa darteed siyaasiyiinta kale ama qabi kara in nidaamka qabiilka loo noqdo ayagoo weliba madax xisbiye ah, waxaan dhihi lahaa aan wada difaacno fikirka ah in aan ka gudubno nidaamka qabiilka, maadaama aan xisbiya dhisnay, aan shuruucda xisbiyada marsiinay, anna aan u dhisnay in lagu hogaamiyo dalka. sidoo kale dastuurkaana uu qabiyo inuu noqdo multi party system waddanka in laga dhigo, tiyo haddana baarlamaanku ansixiyo sharcina laga sameeyey. inaan halkaa gadaal looga noqon waa mabaadi'da isbahaysiga. tan labaad waxaan ku bogaadinayaa dowladda joojinta ay joojisay jaadku marka horeba xalaal iyo xaaraantiisu waa wax kale, laakiin wuxuu ahaa wax dhibaato ku ah mujtamaca Soomaalida, qoysaska Soomaalidu dhibaato ku ahaa, dhaqaalaha Soomaalidu dhibaato ku ahaa. isagoo intaasoo dhibaato nagu hayay haddana Kenya inay gaartay inay badeecada Soomaaliya ka timaada dab ku qabato, ee bariiska iyo kalluunka iyo cuntada ganacsatada Soomaaliyeed hantiday u beec geystaan Kenya, dowladda Kenya ay gubtay bilihii lasoo dhaafay, ayaduna ay isku daydo inay sunno soo dhoofiso. waxaan ugu hambaleynayaa madaxweynuhu go-aanka uu ka qaatay. sideedabana waa inaynan qaran ahaan dal aynan wax danahay noogu jirin dantiisa aanan ka shaqayn, waana inay nagu yaraataa madaxu raaricinta shisheeyaha. waa ku hambaleynayaa dowladda hadda jirtaahi mowqifka qarannimada ay ka taagantahay. dowladda Kenya ha noqoto ama dowlad kale ha noqoto, dana aan wada leenahay oo labadaas dowladood leeyihiin waa inay ahaato siyaasadda qarankeenu uu kula dhaqmayo dowladaha. waxaan sidoo kale ku hambaleynaynaa golaha wasiirada oo qudhoodu soo jeediyey, maadaama duulimaadkii Soomaaliya ay ka reebtay Kenya, ay joojisay wadamada ay u furto duulimaadkada ay Soomaaliya ka reebto, in duulimaadkooda la joojiyo ayagana inta ay ka ogolaanayso, oo dowladda Kenya iyo annagu ay si rasmi ah u ogolaanayso laba dowladood oo darisa oo waxay nooga baahan yihiin oo kale uga baahannahay. intaan laba qarno isla uga xisaabtamayno inay naga maqnaadaan ganacsigooda ayaa iguba waa ku taageeraynaa dowladda mowqifka ay ka qaadatay. intaas kadib waxaan daawaday in Faysal Cali Waraabe la yiraahdo oo halkaa Hargeysa inuu joogo aan filayo, oo taageeraya shir dadka deegaanka magaalada Muqdisho degan ay qabsadeen wiigii la soo dhaafay. dabcan hadduu magac qabiil ku hadlayo amba oda dhaqameed ku hadlayo waa u furan tahay beeshiisa asoo ka wakiila inuu la fiicnaato shirkaas sida loo abaabulay iyo shirkaasi sida u dhacay iyo ka tashiga aayaha ummaddaas
laakiin hadduu magac xisbi iyo magac siyaasadeed ku hadlaya sida ka muuqata dadka hadlay axsaab maahayn ee waxay ahaayeen dad qabiila oo danahooda ka hadlay. Faysalow markaa dad wax taageerayso kuwa kula dhashay Muqdisho jooga ee hadda kuraasta qaranka ugu sarreeya xilligan ood adigu eedeynaysood lahaaday ma ahayn kuwaasi inay meesha ka taliyaan idinkaa saxane dowladda la dagaalama. taas waxay la tahay ma qabato dadka aad u sheegtay sidaas waana ka weyn yihiin. dadka shirkaas dhigtay waa dad qabiil ah danahooda gaarkaana ka tashanayay arrimahoodana ayagaa u madax bannaan. xisbi adigu aada guddoomiye ka tahayna aaraa ugama baahna iyo inuu la taliyo. dad wax taageeraysa kuwa kula dhashay ee Muqdisho jooga ee bosishanada muhiimka ka jooga qaranka Soomaaliya kuwa taageer kuna soo bir. laakiin urkacsiga aada Hargeysa ka dhex wado dad gara karaanahay inaanay waxaasi wax daacada aysan ka ahayn. magaca qabiilkaad ka dhalatana hadda kumaad hadlayna xisbi aad ku hadashay siyaasadda adeer xisbiyaa waddanka ka jira xisbigaad ku siyaasataa ka taageer xisbiyada waddanka ka jira. laakiin xisbigaagu qabiilka aada sheegtay magaciisa iyo xisbigaaga wax kama dhexeeyaan taageerna kaagama baahna. ninkan odagana intaasaan leeyahay. dabcan shirka mudulad shir wuxuu ahaa loo baahnaa oo xilligiisa ku soo aaday dadka deegaankuna ay ayahooda uga tashteen. waxaad se moodaa hadda guddi horumarineeda ka soo baxay baa layidhi. guddiga horumarintana oday 90 jir oo yidhi qoray ayaa cabaysana guddoomiye looga dhigay. marka horumar iyo qoray marka horeyba kala fog yihiin. waxaan rajaynayaa dadka kale ee ayaga aan qoraga u cabeysnayn ee beesha u dhashayo inay horumarka beesha ka shaqeeyaan. ninkii hadda qora u cabeysan yahana isaga dawaanan hadda weli ceel qabee ciilkiisaasoon cidna kuma talaynin meeshuu la aadayo inuu la aado sidaasaan ku talin lahaa. dabcan waxay la tahay Soomaalidu qoray iyo macnaha uu leeyahay iyo waxa lagu gaaro inay wada tijaabisay. laakiin cid hadday u dhiman tahay anigu ma aaminsaneyn hadda ninka odaga aan hadda u dhiman tahay in qora faa'iido leeyahay inay u dhiman tahay moodi ma ahayn. laakiin waa nin ra'yigiis. marka muduloodna waxaan leeyahay horumar iyo qora kala saara. horumarkiina iyo danihiina isma galan qoray ciidan qoray aaminsaneen u dhiibta ana ka shaqeyso danaha mudulood. cidda hadda caqdad iyo colaad qabtana ma aha inay magaca qabiilka ku gambato. waa la soo tijaabiyey horaa loo soo arkay qabiil qarankii dhammaan lahayn aan ku baabi'inay. waxay la tahay marka inaan kala saarno horumar inaan ka fikirno iyo inaan qoryo cabaysano inaan isgelayn. waa rajaynayaa marka in shirkaasi guusho uu ku dhammaaday horumar u bedelanto haddii alla idmo. siyaasad shaqo kuma lahayn oo shir beeleedo ahaa sidaad ka arkaysana de beelaha Soomaaliyeed ama madaxda Soomaalidu inta badan kelmad baa laga siiyey oo lagu sharfay. macnaheedu maaha marka beel dagaal qabto ama beel caraysan inay beeshu ahayd. laakiin qof ra'yi waa qabi kariyaa. waa mahadsantihiin.